qabiilkiina waa wataa qarankiina waa wataa هذا saacada qaran timaadan number 1 ah qabiil markay timaadan maxaa ku doorataa ama kuwa kalifa inaad doorato adoo kamid ah baladii waa beri ama fanaanad qaran ah haddana inaad ku dhinac qaatay heesa qabiil qabiiladiista taas uu igu dhihi karaa asiba qabiilkiisiyo mar hore siyaasiin ahaa oo xambaarsan yihiin heesahan qabiilka ma dhigi karna laftirkeeda trendisa u noqotaa aad u samaysaa qabiiladaas qofkii qabiilkaas ahaa buu raba in qabiiladiisa la amaano mid uusan rabin oo mucaaradku ka soo horjeeda hadii la amaanana wuxuu dambiga noqonaya inuu yeelaya meeshaas uu cilad ka keenaya xaway adiga iyo saaxiibka waxa ku wada jirtiin ama ku wada jirtiin bahda fanka filmkaas in aad Soomaalidu wada daawanayso ahay miyaadan dareemin masayr xilliga uu guda jiray jiritaanka filmkaas aadan masayr dirtiisa jannada ugu soo bixisay anaga jannada xilliga digalaaleya Soomaa aad iyo aad fiiri waxa ku jirto qalcad ah labcaalka qasaarsha wuxuu ragu dhiibtiyo doqonka qasaariyo wuxuu rag u dhiibto macnaha odayaal guud qaran wuxuu qof loo dhiibana Soomaa aad iyo aad qofkii loo dhiibto duu qasaariyo wixii ahbal noqdo waa dhibaato xoolaha dhidi raacsan waxba kaama dhibaaye xoolaha waxa raacsta qof aan waxba ahayn oo kale waxba xoolihim soo laabanaya waa maya marka heestas boontiye badan ay leedahay inta been balaka naloo oo siyaasi raacna siyaasi dantiisa asiga u gaar raadinayo inta raacno hal isu soo baxo dadka hal qaso wadankii shaqo ku milhin anaga shacab hadanahay waxaan noo muhiima amniga aan heesana maanta aan wada ilaalsano fanka dhaqaalo ma laga helaa ama meel dhaqaale laga sameeyay ma tahay fanka qiimaha uu leeyahay Itoobiya iyo Soomaaliya waxa dhaxmar dagaal 77 taariikhda qof walba og yahay aad iyo aad waxay dhaheen anaga dagaalka gacanta ahay oo weerarka ahay iyo dhaawaca iyo dhiig dhimashada ah waxaan uga daran heesaha ka wacyi gelinta heesii Soomaalida dadka lagu riixi jiray ciidanka taariikhdu way qoran tahay marka fanka qiimo leeyahay marka ku saanaysay qabiilka dhawaantan waxaan sameysay hees aad leedahay waxaan ahay hawiye dana qaldaneen heestaas sidee lagu sameeyay sidee ku imaad haligu dirkayga weeye geesigu hilibkayga weeye raggii hoojiye gumayste aniga heebtayda weeye بسم الله الرحمن الرحيم ان داود المانتي waxaad ku soo dhawaataan studio Sultan Films waxa martiin oo ah marti aad culus xaawo degan oo aad wada garanaysaan xaawo baryahan waxaad ka ahayd ama waxay ka ahayd baraha bulshada viral ama sida oo naqaan waxay ka ahayd mataqaana ii sheeg aad ayaa looga hadalhay marka maadaama ay tahay qof hadalheyntiisa badneed waxaan jeclaysanay inaan bulshadeena la wadaagno su'aalo dhowrna ku weydiino su'aalaheena ma noqon doonaan xaawo taariikhdeeda fankeedii inta badan balse waxay noqon doontaa inta badan waxay ku saari doonaa waxyaabo ku duwan waxyaabaha aad uga barateen qof fanaan in lagu wareysto xaawo ko waxaad ku soo dhawaataa studio Sultan iyo dalka Masarba waa dhawahay xaawo hadda waxaan guda galaynaa su'aalaheeni haddii aan ku weydiiyo su'aasha ugu horeyso xaawo adiga iyo saaxiibka waxa ku wada jirtiin ama ku wada jirtiin bahda fanka miyaa isku fanka miyaa isku keenay adiga iyo saaxiibka Cabdiweli Cumar horta waxa isku baranay marka hore saaxiibkiisa oo ogtahaybo hadaad ogeyn hada ku sheega fanaan waaye aad iyo marka waxa isku baranay fanaaniinta markii oo kale oo maanta aan heesli iyo tumaayo ama heesli oo tumaayo musician jiro sax musicianka asna hees u tumaayo ana iyo tumaayo meesha isku imaanay isku baranay aad iyo aad yani waxay ka dhigan tahay fanka iskiin bar ama suukiina keenay aad iyo aad ay u maasantahay xaawo waxaan ogsoonahay saaxiibka inuu yahay qof jilaa ah oo qayb ka ah laftirkiisa fanka waxaana ku xustaa ani film kamid filmaantii oo qaybta ka ah oo la yiraahdo Habboon xilligii oo jilayay ma jirtaa ama ma ka maseertay intuu ku jiray jiritaanka filmkaas horta su'aal fiican waaye magaciga horta xaawo waaye magaca xaawo waa dareem kartaa ma ho aadan masir dirtiisa jannada ugu soo bixisay anaga jannada xilliga digalaaleya Soomaa aad iyo aad laakiin kuleel zaa'id ma jirin maadaama afanki iskula jirno oo xeerarkiisa aqaano wax saas si kulul ma jirin wax culays yani kuma dakhal xaawo haddii aan su'aal kale ku sii weydiiyo sidee nolosha qoyska iyo shaqadiina fanka ay iskula jaan qaadaan ama aad u maraysiin wallaahi marka aad hooyo tahay mas'uuliyad badan ku saaran way aad u adag tahay laakiin inta badan waxa ku dadaalnaa in dhinaca aan tarbiyada haynta ilmaha dareemaan inay dadka waarid ah uga dhowdahay inta aan shaqada jirana
in aabahooda iga caawiyo oo booski hooyo ani isaga maanta ani asay iga jecel yihiinba aad iyo aad marka waxa waaye waa isku beeqamin laakiin dhinacaas oo badannahay dhanka oo carruurta xog ku saartiin waana sida ay tahay saxda ah waxaad goobo kala duwan ka qabatay sida ognahay bandhig faneed sidii yani barnaamijkii heel ay qabanaysay qaybo ka tirsan gobolka Banaadir fiican barnaamijyadan waydan dambe lama arkin maxaa ku dhaca wallaahi hadda wax culays iyo cabsi ma jiraan sababtoo wadankii nabad waaye amni ilaa meeshii ugu dambeysay aan maanta heesano cabsi badan aysan jirin waqtiyana ay leedahay ma gaabin oo gaab naguma imaanin oo anaga dad daalay ama go'aan ka qaatay oo ma joojiye ma nihin laakiin waqtiga ay munaasab ka tahay waa mar walba wadankeena diyaar u nahay wax kasta oo amni darro ah dagaal faragelin shisheeye inaan ka hadalno diyaar u nahay ma inka joojiyay cabsi ama siyaabo kale mase cawaaqib kale in ku yimaaday mase duruuf kale jirto oo ku xiran branka stage wax duruufa ma imaan kartaba marba haddii wacyigelin tahay oo wadanka ay taagan tahay wax duruufa ma imaan karto mana joojin waqti walbana diyaar u nahay naxaa waxaa aada lagugu bartay xiisaha dhanka wadaniyadda waxaana tahay fanaanad ka tirsan hobolada waaberi waxaan rabaa kaa codsalahaa in aad mid ka mid a xiisaha wadaniga ah aad qaatay inaad nala wadaagtid horta xiisaha wadaniga waa marka aan qaadayo waa dareen gooniya igu leeyihiin waxaa ka mid a xiisaha aan jeclahay xiisaha igu jeclahay markaa nin dhagoola wixii wax dhibaya ka dhaadhicinayso dhabaado martaaye indhoole dhagoole dhawaaqan maqlaynin waxnaan dhuganaynin sidee la dhahaa waa dareemi kartaa murtidu ku jirto aad iyo aad waa markaa nin dhagoola waxna maqlaynin aad warkaa dhaadhiciso wax ummi ah se wax uga dhaadhicinay heesta kolba heesta ruxula waaye macnaheedii tafaashiisa midna oo gelimayn laakiin qofkii fahma waa hees aad u xoogan oo durxul ah waaye haye maxaa kaloo kamid ah heesaha wadaniga oo isdhihi kartaa haatan waan ula wadaagi kartaa inta waxaa kamid ah hees aan aad u jeclahay oo iyadan dadka soomaalinimada iyo damiirka iyo soomaalida aad u jecel yihiin waxaa sameeyey maarayaheena cismaan cabdulaahi goore markii yuhuudda ay soo faragelinta kusoo sameynayeen soomaaliya hadday milyamaydo malaayin dhammaato madiidin shisheey na maamuli maayo waa sax milyan hadday maydo oo malaayiin ay dhammaato shisheeye iyo yuhuud inaad malaayiin qof naga dhimato malaayintaas diyaar kow anaa ka ahaan lahayo weelkii dhimanbaadu wuxuu ku dhurtaaye haddaad dheri buuxa sii dhaami tiraado maxaad dhaxashaa weelkii dhimanbaadu wuxuu ku dhurtaaye haddaad dheri buuxa sii dhaami tiraa bal maxaad dhaxashaa markaad nin dhagoola wixii wax dhibaya ka dhaadhicinayso dhabaado martaaye indhoole dhagoole dhawaaqan maqlaynin waxnaan dhuganaynin sidee la dhahaa indhoole dhagoole dhawaaqan maqlaynin waxnaan dhuganaynin sidee la dhahaa markaad nin dhagoola wixii wax dhibaya ka dhaadhicinayso dhabaado martaaye indhoole dhagoole dhawaaqan maqlaynin waxnaan dhuganaynin sidee la dhahaa indhoole dhagoole dhawaaqan maqlaynin waxnaan dhuganaynin sidee la dhahaa dhabcaalka qasaarsha wuxuu ragu dhiibtiyo xoolaha dhida raacso waxba kama dhimaaye ruuxii ku dhahaya
dhahaya sida loola dhaqmaa ruuxii ku dhahaya sida loola dhaqmaa xaawo heestan hadda aad nagu luuqaysay waa hees aad u cajiib ah bal dadka as dhihi karno macnahooda inay fahmaan u baahan maxaa u macnay lahayd heesaha qaybta hadda ugu dambeysay heesta horta micnaheeda aad u badan yahay wayna caddahayba fiiri waxaa ku jirta qalcad ah dhabcaalka qasaarsha wuxuu rag u dhiibtiyo doqonka khasaariya wuxuu rag u dhiibto macnaha odayaal guud qaran wuxuu qofaa loo dhiibana soo maa aad iyo aad qofkii loo dhiibto duu khasaariyo wixii ahbal noqdo waa dhibaato xoolaha dhidi raacsa waxba kaama dhibaaye xoolaha waxaa raacsataa qof aan waxba ahayn oo kale waxba xoolihii ma soo laabanaya waa maya marka heestas boontiya badan ay leedahay hadda daa macnayno 15 nooc in loo sii kala fasiraa laga yaabaa meesha wadada u fasira karaa laakiin fanaankii qofkii sameeyaa naga sii su-aashii kale xaab xigto wax raba inaan ku weydiiyo fanka dhaqaalo ma laga helaa ama meel dhaqaale laga sameeyay ma tahay fanka soo maaha fanka waliba gaar ahaan kan Soomaalida markaan aan joogno waa laga sameyn karaa anaga waa ka sameynay oo fiiri maanta dil idhaho invitation oo waxaa lisoo diray ingiriiska marka dadka qaar waxay ku leeyihiin siima sii goosatid markaa xagga tagtid sabab aan u goosanayna jirto markaa tago invitation la iisoo diro oon tago oon soo joogo bil ama wiiki soo joogo sababtaana usii goosanaynin hadda aniga habeenkii waxaa laga yaabaa 3 aroos 4 aroos sometimes 5 aroos 6 aroos la tagaa magaalada Muqdisho halkaas habeen marka uu yartahay 3 aroos la tagaa 1500 oo lacaga waa markay uu yartahay $1 waa habeenkii armaanka fanka kula soo galnaa waa ku soo dhaweynaya halkii habeen markaan isdhiibo oo inta qaxooti aad isdhiibo intaas masuga على habeen intaas masuga man helay adiya rafaad sila marka fanka dhaqaale uu leeyahay qofka markuu asi karti leeyahay uu wixiisa manage gareysto dhaqaale badan uu leeyahay fanka marka aamintid waxa ku soo galaayo iyo waxa adig marka baxdid ku soo gali doon isku qiimeysid dhaqaale badan uu leeyahay qofka markuu isku tashanayo wixiisa meel dhiganayo wadankiisana aamino wallahi maanta waxa aaminsanahay wadanka uu qanisan adduunka hadii ina inta maanta hayst ka helin aad iyo aad qofkuna inuu wadankiisa aamino waa wax aad waa saxbo aniga hadda qofka magac subinayo wuxuu ku subi karaa wadankiisa aad iyo aad maana soo ku subi karaa si fiican xaw su'aaligan si wadana fanka marka lagu jiro wuxuu u baahan yahay halkan dheer mise waa wax si fudud qofka uu mataqaana ku haleeli karo ama ku gali karo halkan dheer u baahan yahay ani markii ugu horeysay waxaan ku soo baxay tartan oo la dhaho hirgeli hamigaaga faneed hay-ada qabanaysa CRD la dhaho waxaa fadhiyeen dadkii ugu waaweynaa fanka alaab naxariista cabdikariin jiir waa beri jilba culusteeda dhana fadhiyeen buugaag iyo qof walba buug iyo qalin u haystaa ani marka waxaa aaminsanahay imtixaan ma galowsid iskool ma joogtid jaamacad ma joogtid intaanoo buuga maxay ku qori doonaan ilan meesha cilmiyaa yaalaba fanka waa cilmiyaa yaalo qof wuxuu kaa qora stagekaas qaabka u taagan tahay qof wuxuu kaa qora tembo waxa la dhaho qof wuxuu kaa qora toon wax badan hadda weli cilmigaas ani ma gaarinbo waxyaabo badan oo laga qora lagu qiimeynaya jiro marka fanka waxa leedahay waa halkan kaliya ama wax qofku si sahlan meesha ka soo bilaanay dhabar adeeg badan u baahan yahay runtii ani waxaan aaminsan inaan magacna maanta ka soo bisay maalkaaga se kama hadli kari marka fanka magac waa ka soo bisay gabar qarana tahay waxaan kaloo weydiinaa ma jiraan amaalmarin lagu siiyey qof waxaa tahay wadaniya inta badan waxaa aragnaa xilidii ugu dambeeyay oo dhan ama sanadii ugu dambeeyay xaawo degan waxaa ka dhex muuqatay hobolada qaranka heese waxaa sameynaysay wadaniyad ah ay ka mid tahay hadda aan loo qaadinaysay xilligii ay mataqaanaa aqoonsiga Israa'iil ay siinaysay dhulkan waqooyi bari Soomaaliya waqooyi galbeed waqooyiga Soomaaliya aan ka dhex galay wasiirka difaaca mu ahaay mid wasiirada ugu saameynta badan Israa'iil xataa barnaamijka aan talax soo bandhigin uu soo qaatay aad way jirtaa fanka marka dadkeena Soomaaliyeed wixii ka aaminsan yihiin wax aan qiimo lahayn laakiin qiimo leeyahay horta fanka qiimo leeyahay fanoodan dadka hadda waa iska dhalinyaro dadkii hore waa inta badan wixii hadda maanta har waa ogyihiin laakiin dadkeena waa la waayeeloobay ana ugu yar dadkii hore
ma fahantay fanka qiimaha uu leeyahay Ethiopia iyo Soomaaliya waxa dhaxmar dagaal 77 taariikhda qof walba og yahay waxay dhaheen anaga dagaalka gacanta ahay oo weerarka ahay iyo dhaawaca iyo dhiig dhimashada ah waxaan uga daran heesaha ka wacyi gelinta heesii Soomaalida dadka lagu riixi jiray ciidanka taariikhdu way qoran tahay marka fanka qiimo leeyahay dagaalka ugu daran maanta hadda anaga ani odagayga in dadka fanaaniinta inta badan way isqariyaan marka maanta soo hor fariisan in runta isku sheegno dad badan ogeynayna oo sheegno fanaaniinta Soomaaliyeed intooda badan way isqariyaan marka xaqiiqada ka hadalno waxay iska qariyaan in dagaal wadankeena cadawga banaanka kan gudaha uga daran in waxay iska dabaaliyaan iska qariyaan inay shabaab la dagaalamaan habeen iyo maalin waa la dagaalanaa wala socdaan soo fahantaa maaha in kan oo furinta jooga askariga furinta jooga qoriga heesto wixii ka nacbiye midka afka kala dagaal midka afka ka nacbiyihiin inay raadiyaan nacbiyihiin fanka adag waxa waaye in awood aan la celin karin waaye aad ana waxa marqaati ka ahay adiga iyo saaxiibka inta badan dhar ciidan aniko wato fagaraal in ku arko ka heystiin goboladii ku dhex jirtiin aad oo fanka wallahi qiimo leh waxaan ku dhiirigelinayaa fanaaniinta Soomaaliyeed inay iyaga oo dhan wadankooda ugu adeegaan oo u dhintaan oo yani tadxiis u been fiican sababtoo ah hadda barnaamijka ugu dambeeyay oo Israa'iil say ugu soo cabaadeen waa la ogyahay viral noqday barnaamijka wala socnaa hawo waxaan kaloo ku weydiinayaa sidee isku tihiin dhanka iyo mataqaanaa sheeg siyaasadda wallahi horta anaga baajkeena siyaasado ahaay public administration laakiin siyaasad Soomaaliya waxa aan ka dhax galay jaamacada dhamaysa waaw ma sha Allah ana hooyo wali xaamile oo mar umul imtixaankii ugu horeeyay cunugteeda xaamilan 5 bilood waa ahaa gabar yari soo 6 biloodna waa haystay isbitaalna kula jira jaamacada ka baxda jaamacada African University markaas waxa arkaa mararka qaar kood habeenkii cunugtii xanuunsan isbitaal digfeer ku heenaa imtixaankina waa diyaarinay qowmiyada Soomaalida lagu yaqaanaa tadxiyadaas iyo mataqaanaa sheeg dagaalkaas adag hawo hadaan u gudubno dhawaantan waxa qaaday hees ama heesa kamid heesaha u qaata qabiilka sidoo kale qayb ayaa ka tahay heesaha dadka fanaaniinta qaada qabiilka ama u heesa qabiilka كم حلينا قبيلة لكن حكى حلينا خبيل لواس إرسام هذا مكان يقانن قبيلة waa shay qabiilkuna waa shay صح oo nabigeena cali sallallahu alayhi wasallam dhigi jiray waxaan ka mid ahay quraysh oo qabiilkiisa laakiin qabiiladuna gariyo jiray marka waxaan rabaa maxaa ku doorataa ama kuwa kalifa inaad doorato adoo kamid ah baladii waa bari ama fanaanad qaran ah haddana inaad ku dhinac qaatay heesa qabiil waa su'aal fiican waa oo badan dadka isweydiiyaan adiga hal su'aal aan ku weydiinaa تيدا أصلا لابن لك أذهل سؤال كويدينا هاي سؤال مدحوينه قف إن وحا سوق هذانا وحا أصلا نصور نين سياسي أما مدحوينه مرة رودن كسوة مرة أو قبيل كيسة أصور كيس أصلا مدحوينه دعوة أديك أما متك هتجوا ودن كأصلا وحو كلها قبيلة ديست هتاي markaas iyo dhex gashid ama TikTok-giisa ama Facebook-giisa waxa wada bixo dadku wada heeb laakiin maanta aan waxba ahayn siyaasiyiin hore ah adiga soo ana igu dhihi karaa qabiilista tahay ani wadanigan waa xaraan daniga waa xaraan sax waa reebay ima oga shakhsiyadeeda ma oga ma yaqaan qabiiladiista taas soo igu dhihi karaa asiba qabiilkiisiyo mar hore siyaasiyiin ahay wax xambaarsan yahay waa wax meesha ku jiro marka waxa iskaga khaldan قبيل يقبيالك أنا قبيالة دي استميئه أصحاب تيدا صاحب تيدا دتكيجا إن تودا بنا يقول قبيل معها خدنا ولا لا يسكلوا وإسوة إسجعلنا هاي haddana ugu tagi maysid yani qabiilkaaga iyo dadka aad tahay wanaag oo qabiilad ugu tagi maysid marka maxaa ku kalifaysaa qabiil waxa ugu kalifay in horta dawladeena waxay ku dhisantaa qabiil 4.5 waxa la dhaho ay dawladeena ku dhisantaa waa qabiil qarankana wuxuu ka yimaadaa asal qabiil ku yimaadaa qaranka qabiilkiina waa wataa qarankiina waa wataa saacada qaran timaadan number 1 ahay qabiil markay timaadan dadka ilaan aan hadda qabiil qofku ma caynooy kuma aflagaadoonay dhalinyarta inta qabiil isku cayn lahay qabiilkii awal isku cayn jiray wala isku cayn jiray hadda maanta waa qurxinay oo waa amaana waa qiimeena waa darajeyna waa weyneena cidna kuma caayno kuma dhibaateeno kuma aflagaadiisin hadiyaad marka ilaa laakiin ima sheegin waxyaabaha aad ku dooratay heesaha ama heesaha waxaan ku doortay
aroosyada badanaa qofka markuu ku imaanayo ilaan fanaana tamut wuxuu ku leeyahay hees amaanaa rabaa qabiilkeyga in la iigu daro deegaanadeeda in la iigu daro waa qofkii baraamburkii heesii loo soo raray oo la qurxiyey waaye marka wax iyadoo adoon qofna wax ku dhibaateenin qofka kamida dadka bulshada kamida ku yimid waa inaa codsigiisii aqbashaa siduu uu rabay inaa wax ugu yeeshaa adoon qofna ku dhibaateenin may Soomaalida dhaqan waxa jiri jiray baraamburka qabiilka lagu amaani jiray wax oo dhib ah lagu qabay ma jirto marka hadii dhankii baraamburkii cusri ma aha kana cusri ma noqonaa hadii amakaas qabiilka lagu caanin ama aan lagu aflagaadin qabiil in aflagaadey qabiil dhan fiiri sheekha ku jira shariifa ku jira wax walba ku jira qabiil dhan qisa ku aflagaadeyni wasina ma banaana qof caadi xataa ina aflagaadeysi xataa qofka markuu uu ku hor taagan yahay wax uusan raali ka ahayn ama naas uusan raali ka ahayn hada ugu dhawaaqada xanay u dhigantaa waxa laga yaabaa qofkii qabiilka ama qabiilada ugu riixay inuu dad ama xamanaayo ama aflagaadeynayo oo howlo kale ay ka tahay inuu ku jiro in xaw hadii aan ku sii weydiiyo in heesaha qabiilka ma dhigi karno la turkada trendiisa u noqotaa u sameeysaa ama xagga trendiga iyo hadalheena ahaana u doorataan ma la dhihi karaa maya waxaa loo dhihina ku sheegaa in hadda ani hees waxa qaaday in qabiilkeyga waxaa ka horeeyay heesa badan oo qabiilo badan u qaaday in qabiilada badan oo hore ugu soo qaaday wax oo saameyn ama u keenin calashan wax dhibaato ma ii keenin la ajal maxaa keenaa qabiiladaas qofkii qabiilkaas ahaa buu rabaa in qabiiladiisa la amaano mid uusan rabin oo mucaaradku ka soo horjeeda hadii la amaanana wuxuu dambiga noqonaya inuu yeelaya meeshaas uu cilad ka keenaya marka xawo waxaan ku imaanay markaan ku saanaysay qabiilka dhawaantan waxaan sameysay hees aad leedahay waxaan ahay hawiye dana qaldaneyn heestaas sidee lagu sameeyay sidee ku imaad heesta waxaa lagu sameeyay horta anagoo laascaano joogna barnaamij bandhig aan laascaano kusoo bandhigna aragti soma aad iyo aad bandhiga aadka weynaa barnaamijkaas laascaana u tagnay in halkan waxaa ka salaamayaa abwaan zakariya kobciye fanaan ustaad iyo xaaskiisa milyuun in anagoo meesha joogna aan waa iska shaahiinayna galabay ahayd wanaga qabatay wanaga tustay inaan sameyno heesta fadhigiyaa lagu sameeyey ereyga iyo laxanka waxa dhan meesha fadhina lagu sameeyey hees marka abaan zakariya kobciye sameeyey laascaanood fatradii xaaskiisa milyuuna ereyada leh sameeyay bilawday laakiin ereyga mar walba qofka abwaanka ereyga qofka bilaabuu siiyaa marka heestaas hadda ma nagu luqay kartaa ama ma noo qaadi kartaa heesta horta iyadoo dhan kulmo wada luqeyn kara oo waxay u baahan tahay waqti dheer u baahan tahay laakiin hal meesha muhiimka ah boontiga muhiimka soo qaadanayna waana sax heesaha markii la sameynayo in reer hebel saan waareela amaan waa laakiin teestan waa documentary diyaarsan oo sax oo la ogyahay waay in halyeygu dirkayga weeye geesigu hilibkayga weeye raggii hoojiye gumaystee aniga haybtayda weeye halyeygu dirkayga weeye geesigu hilibkayga weeye raggii hoojiye gumaystee aniga haybtayda weeye halyey dunidaba xoraystay wuxuu doonaba helaya hortiis aniga istaagay la galay halgan adag maraykan harkina anaa dareershay jogaba adduunka tartankayga lama huraana haddii hayb la sheegto aanu hawiyaane kowdhe madakicis hiraabe labadhe habargidirayaane saddexde halkuu jogaba adduunka tartankayga lama huraana halyeygu dirkayga weeye geesigu hilibkayga haybtayda weeye halyeygu dirkayga weeye geesigu hilibkayga weeye raggii hoojiye gumay
naftayda weeye halyay dunidaba xoraystay wuxuu doonaba helaya hortiis aniga istaagay la galay halgan adag maraykan harkina anaa dareershay halyay dunidaba xoraystay wuxuu doonaba helaya hortiis aniga istaagay la galay halgan adag maraykan harkina anaa dareershay anoo faahfaahnu haysin taariikhii hore ku laabta diiwaanada hoosu eega haddii hadal laga yimaado soomaali anaa hogaansha oo soomaalonani ihaysan wallaahi hubay noqon layd bilaahi anoo faahfaahnu haysin taariikhii hore ku laabta diiwaanada hoosu eega haddii hadal laga yimaado soomaali anaa hogaansha oo soomaalonani ihaysan wallaahi hubay noqon layd bilaahi anoo faahfaahnu haysin taariikhii hore ku laabta diiwaanada hoosu eega haddii hadal laga yimaado soomaali anaa hogaansha oo soomaalonani ihaysan wallaahi hubay noqon layd bilaahi xaawo heystan waxaa qaatay intaa joogtay masar aad soo gelisay hawada si fiican weliba positionka aan meesha ku qaasay yani uma diyaarsan maxaa jira heystan degdeg inaad rabtay inaad media u geliso mase yani caadi ka ahayd inaad saas ku soo geliso may wax degdeg ma jirin isteelkaas xitaa heystan ku socotay oo trendy noqotay waxa uma baahnayn xataa yani xoog iyo juhdi kaliya leedahay kalama gelinbo trend noqotay su-aasheeda kale dadka qaar waxay aaminsan yihiin in fanaaniintu ay yihiin dad nolosha ka dhacay maxaa arrintaas ka leedahay ama dad fanaaniinta inta badan waxay ka aaminsan yihiin soomaalida yani aragtidooda inay yihiin dad nolosha ka dhacay aragtidaada xaawka ahaan ka fanaanad qaranka ahaan aragtidaas maxaa ugu jawaabaysaa soomaalida waxay ku maamahdaa shantaas farood ma simno aad iyo aad isku mid maaha dadka caadiga oo fanaaniinta ahayn waxaa ku jira xataa dad qaar nolosha ka dhacsan dadka aan fanaaniinta ahayn qaar waxaa ku jira dad nolosha ka dhacsan fanaaniinta isku mid maaha shanta farood ma simna ani tayda ka shakhsiyadeeda ka hadli karaa aniga horta qofka bini aadanka xiriirka ugu horeeya uu leeyahay waa asaga iyo rabbigiisa aad iyo qof xiriirka aniga ilaahayga noo dhexeeya muxma oo waa dadaalaa inta tabartii waa dadaalaa markay bini aadan ah sooma waa dadaalaa balwad weligay ma isticmaalin fanaaniinta dad nolosha ka dhacsan waaye dadku way dhahaan laakiin qof walba nafsadiisa meeshuu geeyo waaye weligay balwad ma isticmaalin waa arka tiktok facebook dad dhahayaan islaantan muqayilad weyn waaye qof kasta horta waa cafiyey حقنا عفس وفدنسا وواحد أهين كوت ها سبته وحرام قفك بني آدم ظني إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل اللحم أخيه ميتا ها قف كستأو أنا وحنا أهين يقول المامي عفس إياها بالود مليه إن هو هوين قارو جيران علمه ضيعوا فنانين أهين ضيع علمه حتى قف بني آدم وإري وكرهسده أنت بدل ما أسكيل عليها بني آدم واقل دم كرها لكن قف كستو أنا قدين عيجا دليل يسوع جدي عيب هاي إلى الرادي عفسوا إياها فنانين تنا وضع حما وحجر فنانين بدن وأهل سلادين إيه يعني حدانا حزب أقرن أما جزء أقرن حزب هدانا أقرن هبينكي أنا هل صورة أقرن مسيح ما شاء الله لكن فنانين يعني لقى وأمني ذاتك والقلية لكن فنانين تمحمو سلادة كجرو ها أنتوا ضبا في حافظ القرآن وما قبرير عنق يرى حنوست أنا سيو يجي جرتي يدو أهد وينيسا أو حسب كورسا زكريا كبعية يدو وينيسا كانوا لكو حرينيين أو قراء أكسجين كذا ورعاي قرآن وأخريكو بلا زكريا والله أنتوا قرآن كرتاجنا وكرك مع ذوي حتى ما شاء الله كورنا ست
marka yaan la khaldami yaa la fanaaniinta fududaan khaldan daniga fahmi. xaaraan waaye dadku ma wada xumo xaawo su-aalaygii qeybii ugu dambeeyay ayaan soo gaaray oo waxaan rabaa markii laascaanood ay ka socotay maamulka waqooyi bari caleemasaarka waxaad qabateen xaflad aada u ballaaran weliba xaflad waxay ahayd soomaalida indheheeda ama dadka duniyadooda qabatay xafladda siyaa diyaariyey ma waxaad ninka iskin u wadanay ahayd siday ku qabsoontay reer laascaanood lafirkooda siday inay soo dhaweeyeen xataa waxaa mala goobtii inay champion ku noqoteen markii dambe dadkii ninka celi waayay marka xafladdaas iyo ma iskeeda u qabsoontay inaad warbixin yar iga siisid horta xafladda meesha madaxdii dowladda dhan iskugu tagaysay caleemasaar guud oo ahaa soomaali dhan adduunkao dhan indhahooda ay soo fiirinayeen anagaa isxilqaamnay xitaa qarashka meesha ku baxay nooga baxay qarash badanaa nooga baxay qarashka meesha ku baxay anagaa jeebkeena ka bixinay aninkoo ah aan kaa dhex galay aniga iyo odagayga cidna oo gaar oo nagu fangaraysa ma jirin anagaa iskeen isku xilqaanay haddana ugama rabno sababtoo waa wax anaga wadankeena xaq noogu leeyahay inaan u qabano marka xaflad aada u weyn ay ahayd xaflad aada weyn ay ahayd habeenkii magaalada dadka yaa la isku soo bixin wax cabsiya kama jirin wax cabsiya laascaano qof kuma harin guri barnaamij qurux badanaa dhacay fariin qurux badanaa meeshii ka gudbinay waana ilaaha ugu mahad celinaynaa xaawo waxaan joognaa gabagabadii barnaamijka ka fanaanad qalad ahaan ka hooyo soomaaliyeed ahaan maxaad fariina u diraysaa dhammaan bulshada soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan si fiican horta ilaahay tawfiiqda hana waafajiyo awalan marka xigta dadka soomaaliyeed fariin waxaa u gudbinayaa ani iga dhex guuxiisay maanta waxaa haysanaa amni inta been balag naloo lulo oon siyaasi raacno siyaasi dantiisa asiga u gaara raadinayo inta raacno halisu soo baxo dadka hala qaso wadankii shaqo kuma lihin anaga shacab haddaan nahay waxaa noo muhiima amniga aan haysana maanta aan wada ilaalsano si aanan naloogu soo hoos gamban amniga muhiim waaye waa haysanaa maanta aan ilaalsano maxaa la dhahaa wax walba oo muhiim oo dalkeena dan ugu jirto aan si wada jira annagoonan mid qaas dan qaas fiirinaynin danta guud aan si wada jira u wada ilaalsano aad iyo aad ay u mahadsan tahay walaashay xaawo degan fanaanad qaran waxaan leeyahay dadka ku xiran studio sultan films in ay wixii mataqaanaa ay ka dhiiban karaan oo afkaarta inay kusoo dhiibtaan hoos isla markaana ay beejkan share iyo legta ay noo soo saaraan xaawo waa mahadsan tahay anna hal mida ku darsanaya oo ah horta bini aadan ahay kullukum qadaa'uun wa khayra qadaa'ina tawaabun lacala hadduu qalad naga dhacayna cafis hana la cafiyo bini aadan nahay aadan u mahadsantihiin aada u mahadsantahay xaawo